ciidamada gorgor oo balad xal ku dilay askar Kenyaan ah oo xuduudeena qalad ku soo gashay ciidanka qaranka oo ilaalinaya xornimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya. Shargareeya muuqaalka warbixinta qaran news waxaan ku eegaynaa xogo la xiriira ciidamada qarankeena oo difaac xoogan u galay difaacidda dalka. Askar ka tirsan kuwa Kenya oo xuduudda Soomaaliya lagu laayay kadib qalad ay ku soo galeen. Kenyaanku maxay ka damacsan yihiin gudaha Soomaaliya? Askartooda ujeedkoodu muxuu ahaa? Muuqaalka ayaan ku falanqeynaynaa si aan marka hore faahfaahinta u guda galno. Shargareeya muuqaalka ku faafiya guruubyada lana wadaaga saaxiibadin. Waxaa sidoo kale naga xasuusinaa in leegta iyo sheerta muhiim ay noo tahay layg la dhac muuqaalka si saaxiibo badan uu u gaaro. Waa hagaag aan ku horeyno. Ciidamada qaranka gaar ahaan kuwa gorgor ayaa balad xaawo ku dilay askar Kenyaan ah oo xuduudeena qalad ku soo galay. Ciidamadan Kenyaanka ah ee balad xaawo lagu dilay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay wadeen qorshayaal kala duwan oo ay ka fulinayaan gudaha dalka iyagoo faragelin ku hayay dhulka Soomaaliyeed. Balse ciidamada gorgor oo si weyn uga soo horjeeda qorshayaasha ay wadeen kuwa Kenyaatiga ayaa waxa ay bilaabeen in howlgallo ay kaga hortagaan. Qaar ka mid ah xubnaha askartii Kenyaanka ahaa ayaa lagu laayay xuduudeena iyaga oo markii horeba qalad ku soo galay. Dowladda Kenya waxay caadeysatay in ay si qalad ah ugu soo xadgudubto dhulka iyo badda Soomaaliyeed iyadoo hore dhowr jeer sidaan oo kale sameysay. Kenyaanku intooda badan maalmihii ugu dambeeyay waxa ay sameynayeen xadgudubyo kala duwan, haddii ay noqon lahayd mid dhuleed iyo sidoo kale mid badeedba. Dowladda Kenya oo Soomaaliya deris la ah ayaa waxa ay isku dayeysaa mar walba faragelinta madaxbannaanida Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa midaasi ka biyo diiday. Ciidamada xoogga dalka ayaa horey waxaa go'aan ay ugu qaateen inay ka hortagaan faragelin walba oo dowladda Kenya isku daydo. Waxaana dowladda Kenya horey looga digay in aysan dalka faragelin ku sameynin. Goobo ay ka joogeen gobolka Gedo ayaa dib looga riixay. Ciidamada Kenyaanka ah waa ay ka baxeen magaalada balad xaawo ayay soo galeen ciidamada waana lagu dilay. Magaalada balad xaawo oo xuduud ahaan Kenya u dhow ayay ciidamada Kenyaanka ah soo galeen. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yusuf Rage ayaa horey ciidamada qaranka waxa uu ugu sheegay inay tilaabo ka qaadaan cid walba oo ku soo xadgudubta madaxbannaanida Soomaaliya. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaana caadeystay in madaxda maamul goboleedyada uu la heshiiyey si Soomaaliya danihiisa uu uga fulsho. Waxaana maamulada Puntland, Somaliland iyo Jubbaland ay yihiin kuwa Kenya heshiis la ah. Waxaana maalmihii ugu dambeeyay socdo qorshayaal ciidamo Kenyaan ay ku soo galayaan gudaha dalka. Baarlamaanka Soomaaliya iyo xubno uu ka mid ahaa madaxweyne Farmaajo ayaa horey waxay u sheegeen in Kenya laga saaro ciidamada AMISOM ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka, maadaama Kenyaanka ay xifaaltan gooniya kala dhaxayso Soomaaliya. Xuduudda Soomaaliyana ay ku soo xadgudubtay dhowr jeer. Kenya oo u muuqatay mid xadgudubkeeda uu sii badanayo ayaa mar kale bilowday dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah Soomaaliya. Waxaana ciidamada qaranka ay u istaageen difaacidda qaranka iyo sidoo kale in dhulka Soomaaliyeed laga ilaaliyo cadowga. Kenyaankan ku soo duulay dhulkeena ayaana ugu dambeyn jab xoog leh lagu gaarsiiyey. Ciidamada qarankeena ayaana u istaagay difaacidda dalka iyo cid walba oo ka hor imaatay inay ka celiyaan. Dowladda Kenya baaqyadii loo diray ma aysan weli ka jawaabin. Waxa ayna muddooyinkii ugu dambeeyay iska indhatiraysay hadaladii ka soo baxaya dowladda Soomaaliya iyo ciidamada xoogga qaranka. Taliyayaasha ciidamada ee jooga gobolka Gedo ayaana horey waxay u sheegeen inay tilaabo ka qaadayaan cid walba oo ku soo xadgudubta madaxbannaanida dhulka iyo badda Soomaaliyeed. Soomaaliya tan iyo markii xornimada ay qaadatay waxa ay u soo jeesatay inay iska difaacdo cid walba oo isku dayda in gumeysi ay ku soo gasho. 1960kii ayay ahayd markii Soomaaliya heeryadii gumeystaha ay iska tuurtay. Waxaana hadda laga joogaa 62 sano. Ciidamada qaranka ayaana sheegeen in aysan marnaba u dulqaadaneyn in heeryo gumeysi la saaro iyagoo 62 sano madax bannaan. Ciidamada Kenyaanka ah ee la laayay ayaa tiradooda waxaa lagu sheegay in ay gaarayaan ilaa 200 oo askari. Kuwan ayaana ahaa kuwa dalka faragelin ku sameynayay. Waxa ayna balad xaawo u soo galeen si qaldan. Xuduudeena ayay qalad ku soo gashay Kenyaanka, waxaana ugu dambeyn laga abaalmariyay qaladkii ay sameeyeen. Xornimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya ayay ciidankeena u halgameen. Waxa ayna dhiigooda u shubeen in qaranka ay difaacaan.